نيلا هذا أنيقا آيات دتكو دندوين يو حافظة إلهي كوكيلة كيو صوغلا بيان دي كل شيء لم يرى في تاريخ الإسلام عقلا وشرعا لا يقبل دولدني مدينة عقيدة دينا أقونتين دينتين يستخفه iyadoo ay u adeegayaan dad xanuunsanaya oo laakiin magacyo leh iyo qaar dawladda ku jira oo wax moodaya ayaa waxay u duleeyeen ummadii oo dhan ninka shaqaysanaya ee soo shaqatay warkada ayaa leeyahay tadarrufku wuxuu keenaa waxyaalaha muslimiinta khilaafka diiniga wuxuu keenaa tadarruf keena إن وخلاف قالوا خلاف دين ضدك قالوا وهذا لا يقبل منه ووحي أن سومال لان يضدك كدفاع عني خلاف لصور لي ومدى لا نحكي لا يقبل وروح نقول نكاسي قرآن هلقا قال ومدني مدين الدين تين تدني مدين أي وحيالي ما حنو قصعد أنا هو أفرت الكاس النضوط صومالي وح أخرية وأن كاتوغوري نوجود شيء نمشيله أما هذا الكيني هاتشوغو أما كيلي الكشنات هاتشوغو أما جيبوتي هاتشوغو أما يوروب هاتشوغو أما أمريكا هاتشوغي تدكويس وضع يقارنه وحسمضة ونمركلية كصور دعية والله أرني هب الباص ظاهر هذا الكتاب كان لكم بشر تصنع رسولك عليه الصلاة والسلام لكم بشر هذا مالين وذات أن تاريخ ديسي علم ديسي وحيان لقرني وحن أيضا لياب حبله إني أين نتشعلين قريها كو إلى ليني قروح ذوذا إنتا كوريني يدمر كيني إنتا صوب بابور بالغو تادين يا مش لأسا إنتو بيكور الشيء أيا دمر كي أي وضا تادين وهستيريا وحوي وحجرة أمراض بدن ونفسية ظروفo badan baa dagaalo badan baa inagu soo dhacay ظروفo badan baa jira dhaqaale xumaa jirta waxyaalahaas waxay keenayaan arrimo badan oo nafsiya tiibu inooga faa'iideystay igaarsiida ka dhacday subxaanallah imisa qof kula soo hadlaya miyaad garanaysaa halkee loo maraa subxaanallah wal ciyaadu billah xukuumadda waxaanu leenahay war haddii idinku ka heshaan mushacwadiinta oo faalka ku shaqaysataan qaar idin ka mid oo ummadii uga dhigaysaan qaaday igaarsiiyay waa la soo daahiray الناس على دين ملوكهم أئمدي هره waxay yiraahdeen hab dhaqanka hogaankoodu dadka leeyihiin baar haadeeye ummadda inta kale waxaan leenahay lan yuqbal minhu wax la aqbali karayo ma ummadda waxaanu ugu baaqaynaa haddii doonaysa in qur'aan lagu daweeyo halka kale masaajidka arruurta yar ee qalin qoyanka ee aan qaangaarin ay qur'aanka kugu dhamaynaysa iyaga ilaahay ku bariyay وهذه أي تحي قرآن لقوة دويه إن الذي أنسل الداء نسل الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام إلهي سود شيء عذرك دودي نو سور راعي فتداووا ورستويه إن الدكتور كأوتكتا ومطلب شرعي وي مركو حنو كهيو لقرنيه إن الذي أنسل الداء نسل الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام وحرام هيسكو دويننا محانو قد شيء بارك الله فيكم لقوا هي الصحابة لين انتم ميل أوتي إلى هذا الصحابي ما نهي 10 المبشرين كي ما نهي قرآن كان حفظ سنة هي الشيطان كمر كان إلى هذا وارث كتق أيوب بودا يصمد وقعية لقوا هي تابعين تي لقوا هي سلف كي لقوا هي لين انتم ضدك يسكو ولا نحتاج يدمر يرق بأيام كل شيء يا يوم مقرتي يعني وحوي تابض الشديد يبيها عن مقرتي تاضية ضدك أردن با مقرت عقلا وشرعا لا نقبله وحنو أقبل كرينا ما حكومة وحنو باقينا علماء وشيقنا انت عقلك يا علمك يا كرتيد لو وشيقنا أرنت زوحي كينيسا انتفاضة وحي كينيسا استخفاف دينتنا ما وحين آمنا ما وحن كان لقيستا ما وحن رميسان كرينا
500 oo kun oo xaafid oo 16 jir ka yar oo Soomaaliland ku nool quraankoodu waxba ma tarayo ila wax kale uu sheegay ma jireen sixiro u bixiyo waxa si afar kalmadood oo quraan ayuu akhriyay in ka badan 480 kitaab ba maktabadeyda ku jira oo ka warramay cilmiga al-ahshaab waxaanu ka xishoonaynaa 40 sanadood anagoo wax akhriyay qof ehela oo muslimood garanayso inaad geedaad meel ka akhriday intaad u walwalaaqdo aad waraabiso subxaanallah oo tiraado kitaab baan ka soo akhriyay oo waliba aad u raaciso tuf baan leeyahay bal jeebada yariga gacanta yariga waxaan idin sheegayaa dawladda u sheegayna waa u sheegnay war dawlad yahay fashilantay ee jilicsani ma waxay gaadhay maanta hablaheeni iyo intii xanuunsanaysay gargaarka u baahnayd ee jilicsanayd in dhibaato kale ay sii gaadho oo farqiyadoodii la furto oo gaadhii keenay yani waxa weeye qaaday gaadhsiiyay waa la soo daahiray waa la hakranayaayay haddaad og tahay dagaalada ka dhex jira xaafadaheeni gudaheed haddii inuu wax lay qabanayo waa la soo daahiray gaadhsi baa ka dhacday subxaanallah hada laa yuqbalu minhu waxaan leenahay war diinteennii wax yeelaysa war wixii constitutionka ku yaalay ee ah wax wal oo shareecada ka hor imanaya laa yuqbalu minhu ee inoogu yaala meesha ayaanay waafaqsanayn war waxaanu leenahay intiina xanuunsanaysa ee maanta maamulka ku jirta ummadda ha ku eegina ninkaas khalfiyadiisa cilmiga khalfiyadiisa taariikhiga khalfiyadiisa cid garanaysa ma jirto waxaad moodaa Nomanisland qaabka loo shaqeynayo waxa meesha ka socda orbit aan ummaduba aanay joogin waxyaalaha keena dilka imika shabaabkeenu la dagaalamayno waa waxyaalaha dilka ku sameeyaan inuu dalka ka ilaalinay naf iyo maalba loo horay waxay keenaysaa marka obin ka dhigtaan wax walba dawladnimadeennii wiiqdaan in wax weey cid walba ay u furanto dabeeto waxaynan garanaynin ka soo baxo war waxaan leenahay ka daaya isagana waa u nasiixaynaynaa adeer haddaad wax hayso aqoon aad leedahay annaga noo kaalay رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ما هذه الآية بأسكال سبحانه وتعالى نقدر قيد الإسلام كوابتر صدا كلمة دقائقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كدب waxaan u mahadnay Allah ii doorayna noqdo qof dadka muslimiinta ku caawiya kalaamka Ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaa wada walaalayaal waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guud ahaan dadka reer Somaliland gaar ahaan xukuumadda Somaliland waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maayarka halka fadhiya iyo gudoomiyaha degmada iyo ma sha Allah nabadoonka guud ee suldaanka guud ee hawd dhakhtarka iyo dhammaan culimada halka fadhisa barnaamijkan waxa loo maartay kulleed insha Allah taala soo diyaariyay barasabka si aan u ogaano wax qabadkeena looga warbixiyo ee dadka shakiga ku jiraan looga saaro saad garanaysaan waxaan deganahay magaalada Boosaaso camalkan hayana waa mid ka adkaaratay YouTube-ka ma yahay sixroole ma yahay qof shaydaan la shaqaysta waxaan ahay dadka muslimiinta nin jecel inuu anfaco sida nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo tilmaamay man istada'a minkum an yanfa'a aqahu falyaf'al bi nabiga sallallahu alayhi wasallam saasoo kala hadii waa wada midkiin inuu anfaco walaalkii ha anfaco waxaan akhriyana waa waxaad maqasheen mana qarsoona anigu ma yahay fuuxiye ama faaliye ama saaxir la dhuntay waxa uu sheegayo sameecada waaweyn baan ku xiray waxa ka soo baxayna waa kalaamu rabbul caalamiin qofka garanaya qofkaan fahmaynina waa loo sheegay inuu waxaan akhriyay quraan yahay halkana waxaan u imid inay tahay dalkeygii
ama ehelkaygii dadka qaar waxa laga yaabaa inay maartay isla ninkani waa fog yahay laakiin dadka ha loo sheegay inaan ahay 70% Somalilander aduu sidaa doonto u soo bar waxaan nugay naas baan nugay awlaadeedo dhanna waxa way waa Somalilander weeyaan marka meesha iskama imaanana waxa keenay dhiig iyo hilib waxaan doonayaa inuu heliyo dadkayga la sixray ee saarka la dab istaagay wax dadku markay yimaadaan Boosaaso waxaan ku sameynay diiwaan gelin baan ku sameynay 6,000 oo qofood ayaan waxaan qornay hal sano 12 bilood 6,000 oo qofood oo ka yimid Boorame Burco iyo Hargeysa dadka yaa sixray su'aashu waa inta weeyaan wayna iska cadahay dad baa sinjiga farcawle inuu ummadda muslimiinta kula mashquulaan sixir wana la garanaya meelaha la sheegay loo furay sixirka dadka lagu sixro waxaan ka codsanayaa dawladda Somaliland inay u kaba gashato dadkan suxarada ah iyo dadka hoosta ku wata ee dadkoodii baabi'iyay dumarka maanta ugu dambeysay aan quraanka saarnay ilaa 1200 bay gaarayeen 850 qofood kama yarayn dumarka sixirka qaylinayay waxa la sixray waa hooyada waxa la sixray waa walaasha waxa la sixray waa gabadhaadii taas waxaan ka codsanayaa dawladda culimada Somaliland sharafta leh ee qiimaha badan ee ahludiinka ah ee inta quraanka taqaanaba waxaan idinka shafayaa dadkii waa la sixray cadow baana haysta jin ayaa ka qaalib noqday afraad saa ka qaylinaya ishu way u dheertahay waxay doonayaan quraanka in lagu kaalmeeyo qiyaamana waxaad baratay waa lagu weydiinayaa waxaan ka codsanayaa inaad samaystaan xarumo waaweyn oo dadka lagu cilaajiyo ilaahayna loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala adiga sheekh is-cilaaji ilmahaaga cilaaji dhammaan inta ehelkaagana u sameey waqti aad cilaajiso maxaa yeelay quraanku waa dawo ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay cadowga ama xasadka aan ogolayn hawshan la qabto hawshan waa la wadayaa mana joogsan doonto ilaa inta aan noolahay haddaan dhintana kuwa kale oo u tababaran ama aan dhalnay ama nala dhashay ama ehelna unbaa soo bixi doona waxaan si gaara ugu dirayaa niyahow hadalka ay sheegayso hubso rag baa istaagay oo yiri ninkaas jinnigu la shaqaysta waa sixroole si ay dadku u waswaasiyaan arrinkaas ilaahay ka caafiyo anigu waxba kuma haysto laakiin hubi ilaahay ayad quraan ku sheegay hadduu idin yimaado mid beenlow ah cadday hadalku leeyahay waxaa leedahay waa la yiri waa lagu yiri shaydaan baa ku yiri anigu cafis bad naga tahay laakiin walaal intaad aniga u mashquuli lahayd ummadda maanta kaalmay doonaysa diinka waa taqaanaa u kaalmeen marka hadalkan waan dheereeyay waxaan diyaar u ahay inaan shaqada wado waliba noloshayda aan ka siiyo waqtiga ugu dheer dalkan meeshaan hadda imidna Hargeyso dadkii baan maamuli weynay waa la kala celin waayay rag iyo dumarka baa isdhex galay sidaasaan nagu kaliftay inaan soo dhawaano halkan aan joogana waa meesha waxa weeyaan maaragtay dee aan isla yaaba lagu duugo marka ninka luqluqa maraya ee xumaan raadiska ha ogaado inaan ahay nin Somalilander ha loo sheego waa fariin gaara hadduu sheekh noqon lahaa iyo hadduu shaydaan noqon lahaaba saa ha laga gaarsiiyo dalka iskama iman waan u dhashay marka intaasaan ku soo koobayaa waxaan qaldana nafay shaydaan bay ka aadeen waxaan saxayna ilaahay baan ugu dhawaaday wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam